كلوان وناسن داوديال halkan iyo Juba TV kusoo dhawaad war wixii gudaha iyo daafaca caanka ee soo gaaray aniga Fataax Durdur ayaa idin warami doona qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxa ay kala yihiin wasiir fiqi oo ka hadlaya arrimo la xiriira hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka wasiirka amniga gudaha oo kormeeray xarumaha ay ka howlgalaan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo qaabilay wafdi ka socday qaramada midoobay ciidamada maamulka galmudug oo gacanta ku soo dhigay rag lagu tuhmayo in ay ka mid yihiin al-shabaab xarunta qaran ee gurmadka degdega ah oo soo saartay warbixin la xiriirta xaaladda abaaraha dalka akhbaaraadka dibadda ee warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona duufaano sababtay dhimasho iyo burbur hantiyadeed oo ka dhacday dalal badan oo dhaca qaaradda Yurub iyo ra'iisul wasaaraha dalka Finland oo ka hadashay muuqaal laga duubay oo lagu baahiyay baraha bulshada intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeena aad ku daawan doontaan markaas u diyaar garoow iyagoo faahfaahsan markale is arag maqal wanaagsan daawadayaal aan ku horeyna ee wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay arrimo la xiriira hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Egraan Shire ayaa warkan inoo faahfaahinaysa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay inay ka shaqeyn doonaan sidii loo laba jibaari lahaa howlaha kala duwan ee la xiriira gurmadka abaaraha ee dalka wasiirka ayaa xusay in hay'adda qaban doonto howlaha samafalka iyo gurmadka ee lagu badbaadinayo dadka barakacayaasha ah ee la ildaran waxyeelada abaaraha wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in la dardargelinayo xarumaha iyo goobihii kale ee loo qorsheeyay kaydka raashinka ku socda dadka liita wasiirka waxa uu ka dhawaajiyay inay hor yaalaan shaqo culus iyo waajibaad qaran sida daraadeeda waxa laga maarmaan ah ayuu yiri in aan ku howlgalno wada jir midnaan laga dheehan karo daacadnimo wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha tiimka hadda loo soo magacaabay hay'adda maareynta musiibooyinka gudoomiyaha ku-xigeenka iyo xubnaha kale shaqaalaha iyo agaasimayaasha hay'adda maareynta musiibooyinka hadda wixii hore waa dhamaadeen dhammaantiin waa salaamantihiin maanta runtii dee waxaan joognaa xaruntii ay ku shaqeynaysay hay'adda maareynta musiibooyinka asalka ahayd argaha iyo saamaha oo shaqaalihii ay joogaan qaarkood xilli dambena ay tahay maamulkii hore ee hay'addana ay xaadir ku yihiin kelmadooda aad dhegeysateen maamulka cusub ee hay'adduna ay ayaguna kelmadoodii yiraahdeen raalina la isaga yahay shaqada hay'addan inay soo noqoto dalka muhiimadiisa ayaa muhiim ah dadka khibradii waayo aragnimada leh ee ka soo shaqeeyana dowladdu siyaabo kale uga faa'iideysanaysaa khibradoodii waayo aragnimadooda lama dayacayo waxaa la yaqaanay in qofku markii ayaanu soo shaqeeyo hal mar habeen madow xilka laga xayuubsado la iska diro laakiin hadda maamulkii hore instructionka prime ministerku uu bixiyay waxa weeye dowladda hay'adaheeda iyo khibradii ay lahaayeen ayaa looga faa'iideysanaya aan runtii rag odayaal oo ixtiraam badan mudan dalka Soomaaliya wuxuu ku jiraa xaalad abaaro ba'an oo 7 milyan oo qof ay saameeyeen waxaan u baahannahay oo halkaan maanta aan fariisin hay'addii saldhigga u noqon lahayd shaqadaas adag
hay-addii biyaha gaarsiin lahayd, hay-addii cuntada gaarsiin lahayd dadkaas 7 milyan ee ku kala fiirsan jamhuuriyadda Soomaaliya. meel aysan jooginna ma jiraan, waa yar tahay. saldhig baan u dhignay, waa mas-uuliyad adag waay. waxaan ilaa saakay processka ay qaadatay waxay ahayd maanta la magacaabay duhurkii ayaa dekreetadooda soo baxday. xafiiskii prime ministerkan shaqadii kala soo wareegnay wasaarad ahaan, wasaaraddaa sii wareejisay, ayagii baa shaqaalihii iyo xarumahoodii la wareegay haddeertaan. taas macnaheedu bakhaaradii baan soo booqanay. taas macnaheedu waxay tahay hay-addii maareynta musiibooyinku inay diyaar u tahay shaqadeedii inay qabsato saacaddan laga bilaabo. sidaas awgeed dadka mas-uuliyadda koowaad ay ku dhacaysana mas-uuliyiintan iyo dadka la shaqeynaya waay. jiljileec baan xoogaa ayaa muuqda. tuutaha la soo labisto, dharka dadka deeqaha qaybiya waa ka duwan yahay. tayga iyo dharka caadiga waa ka duwan yahay. dhar kaaki ah oo maaragtay jeebo badan leh oo u adkeysan kara wasaqda ayay gashtaan. waa aragteen dadka hay-adaha. marka waa dharka caadiga ah ee futashaariyaashii baa noo xiran. emergency sida dalku xaaladdu ay caadi aysan u ahayn, annagana ha naga muuqato, wasaaraddana ha ka muuqato. saacad lagu dhihi kara safar diyaar u garow, boosadaada yartaa meesha agtaada soo dhigo. suuqa xoolahan ka soo laabanayaa iyo xaggan tegayaa waa sheekadeedu ma jirto. marka sida gudoomiyaha cusubna uu sheegay, shaqaha loo diyaar garoobo subaxa sabtida. annaguna waa imaanaynaa oo ilaa aan ka hubsanno inay fadhiisatay shaqadii. waayo mas-uuliyaddii annagaa soo qaadnay, annagaa niri hay-addan hala soo nooleeya. ilaa ay ka fadhiisato aan ka hubsanno gacanteeda ka bixin mayno. markaan hubsanno inay istaagtay oo socotay, markaas waxaa weeye waa gadaal baan riboorka idinka dhegeysanaynaa wixii markaa ka dambeeya. ninkii xoogaa madax adayg muujiye iyo waxaasaan la xalinaynaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenkii, ama dhaqan hore oo la sheegaya isqabqabsiyo ciddii la timaada. marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin. dalkan halkaasuu u jihaystay, mas-uuliyad weyn baa laydin saaray. dalkao dhan indhaha halkaanu kusoo fiirinayaa. koolasha waa dowlad goboleedyo ha ahaato ama dad caadi ha ahaato, dad rafaasan baa guddoomiyahaas markiiba hadda magaciisi markii la arkay iyo ragoo dhanba kusoo dhacaya. in laga jawaabaa la rabaa. bakhaarka hadda aan aragnay waxa ma olin, waa marnaa. dad hadda loo assign gareeyo nadiifintiisa iyo wixiisa beriyo jimcaha laga shaqeeyo. laakiin sabti kartoomadii meesha iska dhooban, meelaha la rabaa wax lagu rido waa buuxsamay wixii waxa yeelana isla beriyo jimcaaba laga howlgalo in lala wareego. markabka taagan muddada inta wax noo keenay aan ka degsan weynay, annaga wax nagu soo laabanayo waay. marka markii laga guddoomaba caawaba processkiisi meeshuu maraya inta la ogaado in beriso waxba aan ka howlgalno waaye, inaan soo rarno alaabtaas oo bakhaaradii lagu talagalay ay ku jiraan. marka guddoomiye waa mahadsantihiin. arrinta ha loo diyaar garoobo. seriously shaqadii waa bilaabatay, waana waxa noo yaalayna ku bilowmaysaa. dabcan kulamo way jiri doonaan, briefing aan prime ministerka siin doono annagoo wada jirna. marka alerti bay iska ahaan doonaan dadkan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waa inoo insha allahu shaqo aan ku ballan iyo gargaar. wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu kormeer ku tagay xarumo badan oo ay ka howlgasho hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya. Bushra ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe iyo madax kale ayaa kormeer ku tagay xarumaha ay ka howlgalaan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ee magaalada Muqdisho. wasiirka iyo madaxdii kale ee la socotay waxa ay booqdeen goobaha laga soo dego iyo kuwa laga baxo ee garoonka aadan cadde, waaxda ajaanibta iyo fiisooyinka, waaxda jinsiyadda iyo xarunta ugu weyn ee laga bixiyo adeega baasaboorka Soomaaliya ee degmada Hodan. kormeerkaasi oo ay sidoo kale ka qayb galeen wasiiru dowlaha amniga gudaha mudane Maxamed Cali Xagaa iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda mudane Isaaq Maxamed Maxamuud. waxaa xarumahaasi ku soo dhaweeyay agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda. wasiirka amniga gudaha mudane Maxamed Axmed Sheekh Cali ayaa bogaadiyay shaqada baaxadda leh ee hay'addu ka hayso gudaha dalka iyo dibadda,
wuxuuna caddeeyay in si wadajir ah looga shaqayn doono xalinta caqabadaha jira, isagoo dhinaca kale kula dardaarmay in lala yimaado qorshayaal istiraatiiji ah oo ka qayb qaadan kara horumarka dalka. Allah u naxariistee meydka Abwaan Hadraawi oo maanta lagu aasay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland. Allah u naxariistee waxaa maanta qabuuro ku yaala magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland lagu aasay Abwaan Hadraawi oo maalnimadii shalay ay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qayb galay aaska oo kumanaan dad shacab ah ay ka soo qayb galeen. aaska kadib madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa warbaahinta halkaa kula hadlay isagoona ku dheeraaday ka sheekaynta shakhsiyadda iyo qofku uu ahaa Abwaan Hadraawi. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt qofna bini aadam uu dhimanayaa ilaahum baa waara ah maantana waxaynu joognaa aaskii marxuum maxamed ibraahim hadraawi oo aynu dhammaanteen wada garanayno. waxaa kaloo yara maanta geeriyootay eedadii iyadana ilaahay ugu naxariisto oo yani qoyskii waxa ku dhacay laba geeriyood tiis iyo tii eedadiiba oo yara hadda lagu aasaya. hadraawi intii dadkani sheegeen baa yaan ku raacsanahay. taariikhdana waa la qori doonaa. halkan ducun baynu maanta uga baahna. hadraawi qof wal oo af Soomaali ku hadlaba waxaan isleeyahay qofkan naftiisu ka hadlo qofka lagu hadal adiga naftaada ayuu kaala hadlay saad u dhaqmayso. qof wal oo af Soomaali ku hadla iyo qoys walbana ka mid buu ahaa. saa labada walaalaha iyo waalidka iyo labada isqabaaba murtida hadraawi mid waliba dhinaciisu ka isticmaalay. rag badan oo kale oo gabayga iyo murtida gaadho waa jiraan laakiin wuxuu gelayaa foolaadka waaweyn ee murtida ayuu ahaa. ilaahay hadraawi ha u naxariisto. wixii muslimaan ka horreeyay ilaahay ha u naxariisto. inagana ilaahay ha uga daba naxariisto. dhammaan martida meelaha fofog ka yimid ee sida keediskaa uga soo gaadhayna aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa. walaaltinimada iyo tacsiya ay nagala soo qayb galeen iyaga iyo dalalkooda iyo dalkooda waa u mahadnaqaynaa. ummadda Somaliland dhammaanteed samariyeen Allah ka siiyo wixii af Soomaali ku hadlay wixii bartay qoyskiina ilaahay samariyeen ha ka siiyo. labada qof ee waaweyn ka baxayna ilaahay khayr qabarkooda soo dhawo. ilaahu naga nooga daba naxariiso. ilaahu dhibaatooyinka oo naga dulqaad. ay abaaruhu ugu horeeyaan iyo cimilada leelay way isbedeshay ee roobka yaraaday ee dhibaatooyinka bateen. ilaahay kuwaana hay naga dulqaado. colaad iyo cudur Allah hay naga ilaaliyo. ilaahay rabbigaada nabad iyo roob iyo caafimaad iyo caanaan ku barina. ilaahu marxuum kaana intaas oo soo tacsiis ka soo xaadirtayna ilaahu ducadiisa naga aqbal. ciidamada maamulka Galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay rag lagu tuhmayo in ay ka mid yihiin kooxda Al-Shabaab. wararka laga helayo saraakiisha laamaha amniga ee gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in la hayo 3 ruux oo lagu tuhmayo inay wadeen abaabul la xiriira miinooyin iyo walxaha qarxa oo la damacsanaa in la soo galiyo gudaha magaalada Gaalkacyo. ciidamada nabad sugidda iyo booliiska ayaa sheegay in raggaasi la qabtay maalnimadii shalay kadib howlgal qorsheysan oo ay sameeyeen ciidamada booliiska iyo nabad sugidda kana sameeyeen dhulka miyiga ee hoostaga deegaanka Dagaari oo 30 kiiloomitir dhanka koonfureed ka xigta magaalada Gaalkacyo. saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan shakhsiyaad la tuhunsan yahay oo aan weli soo galin gacanta laamaha amniga balse ay socdaan baadigoob iyo howlgalo la qorsheynayo in lagu soo qabqabto raggaasi. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu qaabilay wafdi ka socday qaramada midoobe sida mar kale warkan ay ku faahfaahinayso Igraan Shire. wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga Mudane Abshir Cumar Jaamac ayaa ku qaabilay caasimadda Muqdisho ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya ahna sargaal ka howlgala kaalmaynta qaramada midoobe ee Soomaaliya Marwa Antikiki waxa uu kala hadlay barnaamijyada qaramada midoobe ee horumarinta dowlad dhiska iyo dadaalada bini'aadanimada
intii kulanka lagu guda jiray ayaa waxaa la isdhaafsaday aragtiyo dhowr ah oo ay ka mid yihiin fududeynta gurmiga bini'aadantinimada ee la gaarsiinayo dadka tabaalaysan. sidoo kale waxaa la isla falanqeeyay horumarka xaaladda siyaasadeed iyo kuwa amni. wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aad ugu dadaalayso sidii gargaarka u gaarsiin lahayd dadka u baahan ee ku nool deegaanada ay abaaruhu saameeyeen, isagoo ku baaqay in la dardargeliyo kaalmooyinka bini'aadanimo ee caalamiga ahi iyo barnaamijka horumarinta lagu taageerayo ujeedooyinka mudnaanta koowaad u leh dowladda. weli waxaad daawanaysaan war wixii gudaha iyo daafaca caalamka laga soo gaaray ee markaana akhbaaraadka dibadda. duufaano sababtay dhimasho iyo burbur hantiyadeed ayaa waxa ay ka dhacday dalal badan oo dhaca qaaradda Yurub, sida warkan ay ku faahfaahinayso Bushra. duufaano xoogan oo ku dhuftay deegaano ku yaala bartamaha iyo koonfurta Yurub ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 12 qof oo ay ku jireen 3 caruur ah. duufaanadaasi ayaa la soo sheegay inay ka dhaceen dalalka Talyaaniga, Austria iyo jasiirad ku taala dalka Faransiiska. dabeelaha oo la tilmaamay inay ku socdeen xawaare dhan 224 kilomitir saacadii iyo rabab mahiigaan ah ayaa burburiyay kaamam ku yaala jasiiradda Corsica, halka magaalada Venice ee dalka Talyaaniga uu gaarsiiyay burbur. duufaanada ayaa daba socday kuleel iyo abaaro muddo bilooyin ah ka jiray inta badan qaaradda Yurub. Bushra aad ay u mahadsantahay. markaana waxa aynu eegaynaa dhinaca iyo dalka Finland. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Finland ayaa waxa ay ka hadashay muuqaal maalmihii la soo dhaafay lagu baahiyay baraha bulshada ka oo ka muuqanaysay iyada oo goob lagu caweeyo qoobka ciyaar ku soo bandhigaysay. ra'iisul wasaaraha Finland Sanna Marin ayaa wajahaysa dhaleeceyn kadib markii laga faafiyay muuqaal laga duubay. muuqaalka oo loo malaynayo in laga soo qaaday baraha bulshada iyada oo asxaabteeda ay ka mid yihiin dad caan ah ee reer Finland ah ayaa lagu arkayay iyada oo qoobka ciyaar ka sameynayso goob lagu caweeyo. waxay dhaleeceyn kala kulantay xisbiyada mucaaradka ee dalkaasi iyadoo mid ka mid ah hogaamiyayaasha uu dalbaday in ay iska baarto daroogo. Marin oo 36 jir ah ayaa dafirtay in ay maandooriye isticmaashay iyadoo kaliya sheegtay in qamri cabtay. Sanna ayaa mar ahayd hogaamiyaha ugu da'da yar ee adduunka inta aan la dooran madaxweynaha Chile. sanadkii hore waxa ay raalgelin ka bixisay in ay aado club kadib markii ay u dhawaatay qof laga helay COVID-19. toddobaadkii hore baa Marin waxaa loo magacaabay ra'iisul wasaaraha ugu fiican adduunka sida ay qortay jariirada ee Bild ee ka soo baxda Jarmalka. iyada oo ka hadlaysa muuqaalka laga duubay Khamiistii ayaa waxa ay sheegtay in ay ogeyd in la duubayo balse ay ka carootay in muuqaalkaasi uu noqday mid faafa. waxaan leeyahay nolol dhanka qoyska ah iyo mid shaqo oo kala duwan, waxaana sidoo kale haystaa waqti firaaqo ah oo aan la qaato asxaabtayda, taas oo aan kala mid ahay dad badan oo da'dayda ah ayay tiri Marin oo mar ay ka hadlaysay muuqaalkaasi. qodobka ayaa u dambeeyay guud ahaan daawadayaal war wixii gudaha iyo daafaca caalamka naga soo gaaray. aniga Abdulfataax Durdur ayaa idinla socodsiinahay stuudiyaha dhexe Muqdisho iyadoo warka si toos u idinkaga imaanaya kan iyo war xiga intaan dib ugu kulmi doono nabad iyo warsan.